gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. waxaa qodobkaasi noo soo diyaariyay wariye Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Jamuuni. Cali Jeete Ismaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan oo saxaafadda kula hadlay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo waxa uu si kulul kaga jawaabay dalab uu dhawaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni u diray ganacsatada Puntland oo la xiriira in aysan wax raashin u marin meel ka baxsan Puntland si loo ilaaliyo raashinka yaala deegaanada maamulkaasi. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha Puntland uu saameyn adag ku yeeshay gobolka Hiiraan maadaama dadka ku nool Hiiraan noloshoodu ay ku tirsan tahay raashinka laga keeno dekedda Boosaaso ee gobolka Bari. gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo hadalkiisa sii wata ayaa ku hanjabay in haddii aysan Puntland ka laaban go'aankaasi ay dadka reer Hiiraan ganacsigooda la aadi doonaan dekedaha kale ee Soomaaliya isla markaana ay joojin doonaan qudaarta loo iibgeeyo deegaanada maamulka Puntland. sidoo kale gudoomiye Jeete ayaa ku goodiyay in ay canshuur xad dhaaf ah ku soo rogi doonaan qudaarta loo iibgeeyo deegaanada Puntland si ay u joogsato qudaartaasi. mar aynu ku booqnay xarunta madaxtooyada ee laga maamulo maamulka gobolka Hiiraan gudoomiye Jeete ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa waxa ka soo yeeray madaxweynaha Puntland raashinka iyo waxa inoo yaala Puntland lagama bixi karo ganacsiga gobolkaanina 30 sano la soo dhaafay wuxuu ku xirnaa Boosaaso balan miisaano amban kumbaarisim waxa la yiraahdo barbardhig aan ma Puntland Hiiraan ku sama qabta mase oo ku nool mase Hiiraan Puntland ku nool inaan isweydiino waxa ka baxa qudaarta waxaa ka baxa oo aad Boosaaso lagaga nool yahay iyo Garowe khudradda subaga caanaha xoolaha nool intaba anagana jiingadii iyo gadbad bariisa ayaa nooga timaadee noogama yimaadaan xitaa kaash noogama yimaad haddaan warkaas madaxweynaha Puntland ka soo yeeray laga noqon oon caqli Soomaalinimaha la iman waxaan qaadaynaa tilaab aan uga jawaabayna arrinkaas waxa ayagana Muqdisho iyo dekedaha kale Soomaaliyeed u jeeyna shayga naga aadayna tanagayaanyaha naga aadayna $20 canshuurayna xabadda qaraha $5 canshuurayna cidii marka taladu gacanteeda ka baxdo baanu eegaynaa annagu sidiisoo kale oran mayno ama dhihi mayno dad Soomaaliyo isla nool oo wada ganacsada wax ku waya aadimayaan ma dhahay lama oga falcelinta ay maamulka Puntland ka sameyn doonaan hadalka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan. Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Jamuuni, Radio Wadani TV.